Yemen dagaalka ayay ku soo biirtay waxayna gantaalo waaweyn oo aan horey loo arag ku garaacaysaa Tel Aviv. Haatan xilligan aan ku jirno waxaa si rasmi ah loo oran karaa Yemen waxay gashay dagaalka. Muuqaalada aad daawanaysaan waxay ka imaanayaan saldhigga Al-Najd ee magaalada Tacis, halkaas oo laga arkayo ridistii ugu horeysay ee gantaalo Yemen ah oo ku wajahan bartilmaameedyo Israa'iil iyo Mareykanku ku leeyihiin gobolka. Tani waa isbedel degdeg ah oo aan la filanayn inuu sidan u dhaco. Sidaa darteed, waxaan wajahnaa marxalad laga yaabo inay gebi ahaanba beddesho qaabka dagaalka. Mar kale, ciidamada qalabka sida ee Yemen, iyaga oo iskaashanaya xoogagga Ansaarullah, waxay ku dhawaaqeen bilowga howlgal militari oo ka dhan ah gudaha Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanku ku leeyahay gobolka. Bayaan militari oo telefishinka laga sii daayay ayaa lagu xaqiijiyay in howlgalladan ay taageero u yihiin Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, xoogagga gobolka, iyo sida ay sheegeen difaaca shacabka Falastiin ee Gaza. Gantaaladan aad aragtaan xilliga la ridayo waxay ka baxeen gudaha saldhigga Al-Najd ee gobolka Tacis, iyadoo goobjoogayaal ay ka ahaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka gantaalada iyo kuwa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Ilo Yemen ah ayaa sheegay in gantaalada la riday ay ahaayeen kuwo masaafo dheer lana filayo inay gaaraan bartilmaameedyadooda saacadaha soo socda. Tani waa wejigii ugu horreeyay ee si toos ah ay Sanca u shaaciso tan iyo markii uu qarxay wareeggan ugu dambeeyay ee dagaalka. Afhayeenka ciidamada Yemen ayaa sheegay in howlgalladani ay qayb ka yihiin dagaalka ummadda Islaamka oo dhan, isla markaana aysan ku ekaan doonin heerkan, balse ay sii ballaarin doonaan haddii xaaladdu sidaa ay ka sii darto. Waxa uu si rasmi ah u caddeeyay inay garab taagan yihiin walaalahooda Iiraan. Sidaa darteed, Yemen si rasmi ah ayay dagaalka u gashay. Waqtiga ay ku soo beegantay iyo qaabka loo shaaciyay waxay ka dhigan tahay xilliga ugu xasaasisan ee gobolka soo mara sanado badan. Haddii aan si dhab ah u qiimeyno waxa maanta dhacaya, waa isbedel aan horey loogu arag khariidadda colaadda gobolka, xilli ay caasimado waaweyn oo dunida sugayeen jawaabta rasmiga ah ee Iiraan, isla markaana si gaar ah indhaha loogu hayay koonfurta Lubnaan si looga hortago fiditaanka dagaalka. Waxaa si lama filaan ah u furmay jiha cusub oo ka timid koonfurta Carabta, tallaabo bedeli karta xisaabtii istiraatiijiyadeed ee dhinacyada ku lugta lahaa dagaalka ay filanayeen waa Mareykanka iyo Israa'iil. Subaxnimadii saakay, 3 maalin oo kaliya kadib bilowgii dagaalkan, ciidamada Yemen waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen inay ku biireen howlgal, iyaga oo riday gantaalo masaafo dheer oo ka baxay saldhigga Al-Najd, iyaga oo goobjoogayaal ay ka ahaayeen taliyaha guud ee ciidanka iyo saraakiil kale. Weerarkan lagu fuliyay saldhigga Al-Najd ma ahan mid lagu tilmaami karo taageero Iiraan oo keliya, balse waa fariin istiraatiiji ah oo si cad u muujinaysa awoodaha militari ee Yemen, kuwaas oo aan si buuxda loo soo bandhigin bilowgii dagaalka, oo ay haatan galeen marxalado howlgal oo toos ah oo adeegsaday awood sare oo ka ballaaran tii hore loo arkay. Wararka goobta ayaa tilmaamaya in gantaalada loo jeediyo dhulka Israa'iil ay maamusho, iyadoo la sugayo natiijada saacadaha soo socda. Qaar ka mid ah qiyaasaha ayaa sheegaya in nooca aan horey loo adeegsan sanado badan, ama laga yaabo inaysan weligood adeegsan, ay ku jiraan gantaaladan. Tani waa shaki la'aan waxay bedeli doontaa xisaabta dhinacyada oo dhan, maadaama ku biiritaanka Yemen ay ka dhigan tahay in khariidadda dagaalku aysan sii ahaan doonin sidii hore oo ay daqiiqado ka hor ahayd. Saldhigga Al-Najd naftiisu waxa uu leeyahay astaan militari oo weyn marka la eego gudaha Yemen, waana goob ku haastaysan xaalad dagaal. Doorashadiisu waxay muujinaysaa in Sanca ay arrintan u aragto qayb ka mid ah dagaalka ballaaran oo aan la filayn inuu noqdo mid kooban. Dhanka kale, subaxnimadii hore ee maanta, wararka naga soo gaarayay bartamaha Tel Aviv waxay sheegayaan in weerar ka yimid dhanka Iiraan uu si toos ah u beegsaday dhismaha raaxada ee Dafanjiya. Weerarkan oo markii ugu horeysay loo arkayay mid gantaal oo caadi ah, ayaa markii dambe la xaqiijiyay inuu ahaa mid aad u khatar badan sida hore loogu maleynayay, iyadoo qiimeynta hordhaca ah ay muujisay in waxyeello ballaaran ay ka dhalatay. Ilo Israa'iil ah ayaa markii ugu horeysay tan iyo bilowgii colaadan xaqiijiyay dhimashada sarkaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka militariga, kana mid ahaa waaxda howlgallada ee Ammaan, taas oo door weyn ku lahayd isku dubaridka duqeynta ka dhanka ah Iiraan iyo koonfurta Beirut. Sarkaalkaasi oo lagu magacaabo Ijil Fili wuxuu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala dabaqa 24aad ee dhismaha dabaqaasi oo si toos ah loo beegsaday. Falanqeeyayaal ayaa ku tilmaamay weerarka mid leh bartilmaameedyo sax ah oo toos ah. Markii la eego baaxadda waxyeellada, waxaa la arkaa in la beegsaday hal dabaq iyo hal guri oo keliya, taas oo dhalisay su'aalo waaweyn oo ku saabsan heerka saxnaanta bartilmaameedyada, nooca gantaalka la adeegsaday, iyo sida uu uga gudbay nidaamyada difaaca Israa'iil.
weerarku waxa uu dhacay 11kii duhurnimo iyo 21 daqiiqo markii gantaalku uu ka gudbay difaaca cirka isaga oo si toos ah u garaacay dabaqa qaybta 24aad. qayb ka mid ah dabaqa ayaa burburtay, gurigiina gebi ahaanba waa uu gubtay. ciidamada gaarka ah ee Shinbit ayaa si degdeg ah u go'doomiyay goobta iyagoo ka hor istaagay warbaahinta inay duubtaan, taasoo muujinaysa xasaasiyadda shakhsiga la beegsaday. Ilo caafimaad ayaa xaqiijiyay in meydka sarkaalka laga soo saaray halkaasi, iyadoo ay jiraan dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah ilaalada iyo dadkii kale ee deganaa dabaqa. Weerarkan oo lagu tilmaamay mid aan gafin bartilmaameedkiisa ayaa haatan noqday qodobka ugu weyn ee laga doodayo gudaha Israa'iil iyo dibaddaba. Ku biiritaanka Yemen ee dagaalka maanta ma ahan war caadi ah, waa xilli isbeddel leh oo laga yaabo in gebi ahaanba dib ay u qaabayso miisaanka dagaalka. Waxa maanta dhacay ma ahan oo kaliya in la riday gantaal masaafo dheer, balse waa ku dhaqaaqid in dagaalku uu ka gudbay heerkii hore una gudbay mid ballaaran oo qoto dheer. Saacadaha soo socda ayaa noqon doona kuwa ugu culus, laguna ogaan doono jihada mustaqbalka ee Bariga Dhexe. Yemen soo gelitaanka dagaalka waxa ay beddelaysaa miisaanka, iyadoo Sacuudi Carabiya iyo Yemen aan ognahay waxa ka dhexeeya iyo xitaa Imaaraadka Carabta. Saacadihii la soo dhaafay, halkii daqiiqaba Imaaraadku waxa uu khasaarayay wax ka badan $1 milyan kadib markii la xiray eelaboorradii guud ee dalka Imaaraadka Carabta. Sacuudi Carabiya waxaa lagala dagaalamay ilihii dhaqaalaha oo waxaa la burburiyay warshadii sifeynaysay kaalinta shidaalka iyo sidoo kale warshadihii soo saarayay intaba. Bahrain waxaa ka bilowday mudaharaadyo duufaan ah oo ay sameynayaan dad Shiica ah oo taageersan Iiraan. Waxa ay gubayaan garoomada, waxa ay tagayaan meel walba iyaga oo isticmaalaya dab iyo waxyaabo qaraxyo dhalinaya. Syria sidoo kale Shiicadu waa mudaharaadaysaa, Ciraaq waxaa ka socda mudaharaad. Iiraanna gantaale ayay ku garaacaysaa Bahrain iyo Kuwait iyo Qatar iyo Israa'iil. Sidoo kale Yemenna waxa ay la soo baxday gantaalaheedii oo Israa'iil ayay marka hore ka bilowday. Lama oga inay u laaban doonto dalalka kale ee Carabta ee dariska ah, waxa ayna ku hayaan wadnaha farta maadaama dagaal xooggan uu kala dhexeeyo Yemen, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta. Xaalku faraha ayuu ka baxay, saacadba saacadda ka dambeysa xaaladdu waa sii adkaanaysaa. Shaki kuma jiro in dhaqaalihii khaliijka oo hoos u dhacay kadib markii xalay Iiraan ay ku dhawaaqday in uu totally xiran yahay kanaalka Hormuz. Haddii la xirana waxaa sii xoogeysanaya dagaalka oo Mareykanku ma aqbali karo in la xiro, waana isha koowaad ee dhaqaalaha ugu faraha badan uu kasoo galo wadamada khaliijka oo uu waardiiyey Mareykanku. Sidoo kalena waa dhaqaale saameynaya caalamka oo idil. Shalay kaliya 35% ayuu shidaalka caalamka sare u kacay, waxayna noqonaysaa cunaqabatayn lagu sameeyo dunida oo idil. Haddaba wixii kasoo kordha xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalka, cunaqabataynta Iiraan, gantaaladeeda lagu garaacay Israa'iil iyo sidoo kale weerarka ay hadda kusoo biirtay dowladda Yemen, waxaan kusoo gudbin doonaa muuqaaladana dambe. Shirkadda la wadaag saaxiibadaada haddii aan ugu cusubtaan ugu soo biir waa mahadsantahay.